السلام عليكم داودة dhammaanteen waxaan ognahay haddii aad ka xanxantooto ama aad ka riiraxyooto dhuunta waxa dhacaya inay yihiin inay kaa soo baxdo qaylo dheer oo ah qufac markii aad qufacdo waxaad hawada ku sii daynaysaa bakteeriya ama jeermis uu la socdo dhacaan aadayana jihooyin kala duwan khaasatan meelaha kugu hareeraysan qufaca naga soo baxa ma ahan mid mar kasta naga yimaada oo mararka qaar maba qufacno sidaa daraaddeed meeqa ayay nolosheenna qufac la'aan joogi kartaa mise la'aantiis waaba dhimanaynaa muuqaalkeenna maanta ayaan ku soo qaadanaynaa waxa dhacaya haddii aadan weligaa qufici lahayn haddii muuqaalo noocaan oo kale aad ka heshid fadlan ha iloowinaa muuqaalka laaygaraysid fikirkaagana aad iigu reebtid qaybta commentiska aan bilaabo muuqaalka qufucu waa falcelin ay leeyihiin bil'aadanka iyo xayawaannada qaar waa qaylo ama dhawaq dheer oo ka imaanaya gudaha hoose ee sanbabada mana ahan mid aad adigu maamuli kartid yacnii aad isku celin kartid laakiin intaanan ka hadlin qufac la'aan bal aan ka hadlo sidee qufucu ku yimaadaa qufucu kama soo bilowdo sanbabada waxa uu ku bilowdaa marka aad neef soo qaadatid oo ay soo gasho sanbabada kadibna ay isxirto qaybta dhuunta ka ilaalisa in sanbabada ay u soo gudbaan shayaal kale waxaana loo yaqaan afka qalaad galootisku waxa uu daboolaa dhuunta hawada geysa sanbabada oo afka qalaad loo yaqaano taraakeya kadib ayaa waxaa dhacaysa murqaha caloosha kuwa feeraha iyo muruqa sanbabka ka hooseeya loo yaqaan dayafaraamka inay si xoog ah isku qabtaan kadibna hawada ay ka soo saaraan afka iyo duleelada sanka laakiin ilaaliyaha marinka hawada ee galootiska oo xihan dartiis cadaadiska hawada soo socda ayaa badanaya kadibna inuu furmo ayuu keenayaa cadaadiskaas hawadiina waxay ku soo baxaysaa si xawli ah hawada uu soo saarayo qufaca xooggan waxay ku socotaa xawaare u dhowkan ay ku socdaan hirarka codka waana taas midda keenaysa codka dheer ee uu soo saarayo xabadka ama feerahaaga waana habkaas qaabka uu ku yimaado qufaca haddii uusan adduunka ka jirin qof qufaca isma xiri lahayn galootiska ama ilaaliyaasha marinka hawada sanbabada iyo marinka hawada ma soo saareen hawo xoog badan oo keeni lahayd codka dheer ee qufaca si tartiib ah oo raaxo leh ayay u soo bixi lahayd hawadaada qufac kasta sabab la'aan ma yimaado ee waxaa jirta waxa keenaya inuu qufaco qofka waxaana ugu weyn waa inuu ilaaliyo dhuunta iyo marinka hawada kana dhowro waxyaabihii dhibta u keeni lahaa ee bannaanka ka imaanayay markii ay soo galaan sanbabada waxyaabo jidhka aan loogu talagelin sida wasaqda iyo busta waxay xanxantaynayaan ama riiraxyaynayaan marinka hawada kadib neerfayaasha ayaa fariin u diraya maskaxda oo lagu leeyahay waa inay murqaha caloosha iyo taablada isku diyaariyaan inay saaraan hawo si bannaanka loogu bixiyo waxyaabaha dibadda ka yimaaday waana sidaas sida uu jidhkeenna uga takhalluso waxyaabaha uusan u baahnayn ee dibadda kaga yimid waxaasna waxaa ka mid ah wasaqda busta dareeraha diifka jeermiska ama bakteeriyada iyo fayrusiska haddii aadan qufici lahayn marka ma jirin wax bakteeriya iyo cudur ah oo aad gaadhsiin lahayd ama aad ku faafin lahayd dadka kale balse naftaada ayay saamayntu wajahaysaa maxaa yeelay inaad qufacdo waxay ku dareensiinaysaa calaamad ah inaad jiran tahay oo uu cudurku hayo mana ogaan karaysid inaad ladan tahay iyo inaad xanuunsan tahay waxaa badanaya dadka qaba cudurrada sanbabada iyo dadka sanbabahooda ay shaqo gabeen sidoo kale waxaa la arkayaa dad ayagoon jiro ka muuqan iska dhintay maadaama dhibaatadu aysan calaamad qofka ka soo saarin adduun dadka joogaa aysan qufacayn waa inaad iskarantiishaa si aad u ilaaliso sanbabkaaga inuu nadiif kuu ahaado oo aad uga fogaatid busta wasaqda iyo jeermisiska kumana eka karantiilku bil ama 2 bilood ee waa noloshaada oo dhan waa inaad iskarantiishaa ama waa inaad xidhataa dharka isku daboolan ee ku qarinaya adiga oo dhan meel kastoo aad tegaysid adduun aan la qufacaynin waa kaligaa noolow kelinnimaduna waxay keentaa cabsi iyo welwelka iyo cabsiduna waxay keenaan in wax soo saarku yaraado in wax la soo saarinna waxay keenaysaa in dhaqaaluhu uu hoos u dhaco dunidu gebi ahaanba sidaas ayay u muuqanaysaa xaaladdeedu sidaa daraaddeed qufucu waa mid kuu wanaagsan adiga daraasaad baaris ah oo la sameeyey waxa ay sheegeen in qofka caafimaadka qaba oo maalinkii qufuci karo 11 jeer
inaad qufacdo waa wax u fiican caafimaadkeenna waana sababta keentay in la soo saaro qalab qofku ku caawiya inuu qufaco marka dareere ama malax ka buuxsanto saablaydiisa asagana uu awoodi waayo inuu qufaco. qufaca kadiska ah ma ahan mid aad maamuli kartid balse waa dabiici sida libirsiga isha oo kale. ma joojin kartid mana sii dayn kartid laakiin ugu yaraan afka iyo sanka waa inaad daboolan kartaa markaad qufacaysid ama hindhisaysid adigoo isticmaalaysid tiish ama xagasha xusulkaaga. hana ku quficin hawada adigoo aan waxba iska xijin ama ugu yaraan dadka ha ku quficin. xasuusanowna gacmaha inaad saabuun ku dhaqato si aad uga fogaato inaad jeermiskaaga dadka u gudbiso markii aad salaantid. haddii aadan sidaasi samaynna waxaa gudbaya dhammaan cudurrada aad gacmaha ku siday qofkii aad taabatidba. intaasi waa intii dhici lahayd haddii aadan quficin. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay daawade. haddii uu ku cajabiyey fadlan ha iloobin inaad nagu soo biirto laegna saartid muuqaalka aadna sii sheergaraysid fikirkaagana qaybta hoose ee kommentiska iigu reebtid. mahadsanid.